بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسن دلكين بهالكني ومجن ميديا أنا قلنا وحنا يا عبد القادر محمد صدح يتوانك بجا جنوري سنة لبضا كون يلحي لباتك عيين جوجنا صاحب بيالا سودو هذا برامج كان وحنا كل وذاقي دونا مدحوينها الدلك إريتريا السياسة فرق أو رئيس قطر بحيي ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale xiisadihii dhawaanahanba ka soo cusboonaanayay waxa uu dhinaca kale eedayn xoogan u jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa dhinaca kale waxa uu weerar afka ku qaaday dawladda Imaaraadka Carabta ama isutaga Imaaraadka Carabta oo muddooyinkii u dambeysay la kulmaysay dhaleecooyin kala gedsan waxa uu siyaasad farqi tilmaamay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay ku mashquulsan tahay sidii ay khalkhal amni uga abuuri lahayd gobolka geeska Afrika waxa uu tilmaamay inay dawlado iyo sidoo kale kooxo aan sharci ahayn markaasi ay taageero xoogan u muujinayaan waxa uu xaqiijiyay in Imaaraadka Carabtu dhawaanahanba ama muddooyinkii u dambeysay hubka noocyadiisa kala gedsan ay ku soo gurayeen ama ku daabulayeen dalka Itoobiya halkaasi oo tilmaamay in Itoobiya ay isu diyaarinayso inay dagaal ku qaado dalka Eritrea waa sida uu tilmaamay siyaasad farqa ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in dawladdiisa iyo ciidamadiisu ay u diyaarsan yihiin sidii Eritrea ay uga difaaci lahaayeen cid kasta oo soo weerarta waxa uu dhinaca kala tilmaamay Abiy Ahmed uu ku eedeeyay in xiisadda gobolka ka taagan uu qayb ka yahay isagoo dhinaca kala sheegay in Abiy Ahmed dawladdiisu ay ku guul daraysatay in xaaladda gobolka ama dalka Itoobiya gudihiisa ay wax ka qabtaan waxa uu tilmaamay in gobolada Oromada Axmaarada iyo sidoo kale Kantigreygu ay xiisado colaadeed ay ka jiraan aqoonsiga Soomaaliland ay ka heshay Israel ayuu sidoo kale ku tilmaamay inuu yahay mid la doonayo in lagu khalkhalgeliyo amniga guud ee markaasi gobolka geeska Afrika waxa uu sidoo kale difaacay heshiisyada uu la gaaray dawladaha markaasi Sacuudi Carabiya iyo wadanka Masar oo muddooyinkii u dambeysay cilaaqaad wanaagsan oo markaasi kala dhaxeeyay dawladda Eritrea waxa uu sidoo kale ka soo horjeestay taageerada Imaaraadka Carabta oo muujinayaan kooxda RSF la yiraahdo ee ka dagaalanta dalka Suudaan waxa uu tilmaamay inay xaq waajib ay tahay in la taageero dawladda Suudaan ee uu hogaamiyo Abdel Fattah al-Burhan madaxa ciidamada militariga ee dalkaasi haddana kusimaha madaxweynaha dalkaasi inta doorasho rayda oo rasmi ah markaasi laga gaarayo waxyaabaha kale ee uu muhiimsanaa ee markaasi Abiy Ahmed iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta uu ku eedeeyay waraysigiisa oo dhameystiran ayaa halkan saaxiibayaal idin kula wadaagayay nagu soo biir oo barteena YouTube-ka ee Magan Media subscribe ku samee sidoo kale soo follow garee bartaan Facebook ku leenahay ee Magan Media halkaas oo aan si maalinle idin kula wadaagno warbixinada kala gedsan ee markaasi aanu idin soo gudbino aynu ku bilownaa saaxiibayaal sidaad ka warqabteenba muddooyinkii u dambeysay waxaa jiray xiisado colaadeed oo markaasi ka dhex taagnaa dawladda dalka Itoobiya iyo sidoo kale dawladda Eritrea waxaana muuqatay in marba markasii dambeysay loo dhawaan karo ama loo sii dhawaanayo colaad labadaasi dawladood mar kala dhex marta tan iyo 1998 ilaa iyo 2000 dagaalkii Badame ee markaasi ka dhacay xadka labada dawladood u dhaxaysa waxaa jiray is-eedeymo kala gedsan balse qoriga xabadu afka ma aysan ka bixin dagaalkaasi oo dawladda Mareykanku uu kow ka yahay ay soo gabagabeeyeen taasoo la tilmaamay inay markaasi wax badan ka qabatay in xaaladda gobolku ay degto dawladda Itoobiya ayaa dhowrkii sano u dambeysay waxa ay si xoog ah u raadinaysay inay hesho mid ka mid ah xeebaha ku yaala badda cas waxaana dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay xoog ka saaraysay sidii ay ku gaari lahayd dekada Casab oo marar kala duwan Abiy Ahmed uu sheegay inay iyagu hore u lahaayeen sidoo kalena si khalad ah dawladda Eritrea markaasi loo hoosgeeyay Abiy Ahmed waxa uu eedeeyay xukuumadihiisa ka horeeyay si gaar ah xukuumadii TPLF ay iyagu markaasi hogaaminayeen ee uu Malazanawi ra'iisul wasaaraha ka ahaa taasoo sababtay in markii ay xukunka dalka Itoobiya ay gacanta ku dhigeen dalka Eritrea uu markaasi guud ahaanba Itoobiya ka go'ay sidaasna Itoobiya ay ku noqotay dal ku jira xabsi juqraafiyadeed oo afarta geesba markaasi waxbada aysan ka xigin dalalna markaasi ay ku teedsan yihiin dhinaca kale xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddii ay noqoto wasiiro haddii ay noqoto shaqaale dawladeed kuwa diblomaasiyadda Itoobiya ka shaqeeya iyo taliyaasha ciidamada militariga booliska iyo sidoo kale laamaha kala gedsan ee ammaanka ee dalka Itoobiya ayaa dhammaantood waxa ay isku raaceen in dekada Casab ay iyagu xaq u lahaayeen horeyna ay u lahaan jireen haddana ay mar kale inay qabsadaan ay u diyaarsan yihiin ninka lagu magacaabo taliye Field Marshal Birhanu Julla oo ah madaxa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Itoobiya
ayaa muddooyinka ugu dambeysaba hanjabaado culus waxa uu halkaasi uga dirayay dowladda Siyaas Afarqi isagoo tilmaamay in Ethiopia maalin ay noqotaba ay dekada Casab markaasi ay xoog iyo xeelad midii ay ku awoodaba ay ku qabsan doonto hadalkaasi Eritreanka iyo dowladooda aad ayuu uga cadhaysiiyay ugu dambeyntii xaaladdu waxa ay soo gaartay in midka kale uu ku eedeeyo UN-ka ama qaramada midoobay xafiiskooda magaalada New York ku yaala waraaqada dacwo ah oo Siyaas Afarqi iyo Abiy Ahmed ka kala socda ayaa la tilmaamay inay gaareen taasoo dhinaca kale la sheegay inay markaasi ugu hortagayaan in midka kale uu markaas dusha ka saaro in dagaal hadduu bilowdo isagu uu markaasi qaado dhinaca kale warbaahinta lagu magacaabo Foreign Policy oo arrimaha diblomaasiyadda caalamka ka hadasha ayaa waxa ay tilmaantay in sanada 2026 wadamada la rajeynayo ama laga baqayo inay markaasi uu dagaal ka dhex bilowdo ay ku jiraan dowladda Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea iyadoo la tilmaamay inay boqolkiiba markaasi wax ka badan 60 ay markaasi suurtagal tahay in labadan dowladood uu dagaal dhex maro hadda xiisadu mar kale ayaad moodaa inay dib u soo laba cusboonaanayso iyadoo gobolka Geeska Afrika uu muddooyinkii ugu dambeysay qasnaa taasoo keentay in aqoonsigii Israel ay siisay markaasi Somaliland iyo madaxweyne Ciro uu markaasi gobolka ka bilaabay in jahawareer siyaasadeed uu galo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay markaasi ka shaqeyso sidii ay diblomaasiyadda caalamka Israel markaasi ugu dagaalami lahayd ninka lagu magacaabo Siyaas Afarqi madaxweynaha Eritrea waxa uu dhawaan bixiyay waraysi qoto dheer oo xaaladda dalkiisa ka hadlaya dalka Ethiopia ka hadlaya xiisada labada dowladood ka hadlaya sidoo kale Imaaraadka Carabta eedeymo ballaaran uu u jeediyay ayaa ku jira gobolkana waxa uu tilmaamay in xaaladdu hadda ay ku jirto uu noqday mid markaasi aad u cakran waxa uu yiri Siyaas Afarqi madaxweynaha dalka Eritrea in xilligan loo baahnayn in markaasi gobolka Geeska Afrika uu dagaal ka dhaco waxa uu tilmaamay in dagaalka biyaha iyo propagandada ay dowladda Ethiopia markaasi ku soo qaaday dalkiisa ay markaasi wax weyn markaasi Geeska Afrika ay uga dhigan tahay waxa uu tilmaamay in dowladda Eritrea ay iska difaaci doonto dagaal kasta oo dalalka dariska ama kuwa caalamka uga yimaada mar la weydiiyay sida diblomaasiyadda Ethiopia iyo sidoo kale talaabada ay ku doonayso inay ku hesho mid ka mid ah xeebaha ku yaala badda cas ay u saameyn karto madax banaanida dalka Eritrea madaxweynaha dalkaasi Siyaas Afarqi waxa uu yiri looma baahno in waqti lagu lumiyo arrimahaasi isagoo markaasi yasaya in hadallada dowladda Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ba ka soo yeeraya aysan markaasi heerka loo maleynayo aysan gaarsiisnayn waraysi lagu baahiyay telefishinka qaranka ee dalkaas madaxweyne Siyaas Afarqi waxa uu soo qaaday ama uu ka hadlay arinta badda cas iyo sidoo kale juqraafiyadda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika sidii horeba looga bartay isagoo ka hadlaya arrimaha gudaha Ethiopia Siyaas waxa uu eedeeyay xisbiga barwaaqo ee markaasi ajandaha u haya dalkaasi Ethiopia isagoo tilmaamay in markaasi siyaasadda dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay dalkaasi ku hogaaminayso inay tahay mid markaasi muujinaysa quus iyo Geeska Afrika inuu dagaalo markaasi ka wado waxa uu yiri in kasta oo uu jiray buu yiri heshiiskii Pretoria lagu gaaray oo markaasi TPLF iyo dowladda Abiy Ahmed ay gaareen waxa haddana jiray buu yiri dagaalo kale oo ka socda gobolada Axmaarada Tigrayga iyo markaasi deegaanka Oromada isagoo dagaaladaasi ku ilaamiyay markaasi waxa ilaamiyay ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxa uu ku faanayaa buu yiri diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka uu ka soo urursaday dalalka caalamka annaga ma xiisaynayno dagaal ayuu yiri ninka lagu magacaabo Siyaas Afarqi si kastaba ha ahaatee waan naqaanaa sida dalkeena loo difaaco ayuu warkiisa sii raaciyay higsigeenu waa inaan xoojino xiriirka wanaagsan ee dowladaha gobolka Geeska Afrika ku yaala aan la leenahay ayuu yiri waxa uu sidoo kale aad u ilaamiyay halka ay dowladda Ethiopia markaasi ay ka keenayso hubka noocyadiisa kala gedsan ee markaasi ay markaasi doonayso inay dagaalada ugu qaado ama dagaalada ay ku gasho waxa uu yiri su'aal ayuu iska weydiiyay yaa keenaya ayuu yiri diyaaradaha aan duuliyaha lahayn yaa agabkan oo dhan dibadda ka soo iibinaya ayuu yiri yaa maal gelinaya shirqoolkan halkee laga keenaa buu lacagtan oo dhan oo ay ka imaanaysaa arintan ma ahaan buu yiri ajandaha xisbiga dalka Ethiopia gacanta ku haya iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu yiri arintan waa ajande kuwa kale oo markaasi loo fasiray inuu ka wado dalal shisheeye waxa uu yiri Siyaas Afarqi isagoo tilmaamaya inay jiraan
wadamo kale oo go'aansaday inay colaad ka abuuraan gobolka geeska Afrika waxa uu carabka ku dhuftay dowladda Imaaraadka Carabta waxa uu leeyahay halka dowladda Ethiopia ay uga imaanayaan hubka noocyadiisa kala gedisan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo agabka militeriguba waxa markaas ma ahan ayuu leeyahay kuwa Abiy Ahmed iyo xisbigiisu ay markaas soo iibiyeen waxa uu leeyahay waa kuwa dalal kale markaas ka imaanaya Imaaraadka Carabta iyo wadamo kalena markaas ay ku jiraan waxa uu leeyahay waxa ay doonayaan in gobolka geeska Afrika laga dhaliyo khalkhal amni darro Abiy Ahmedna waxa uu noqonayaa ayuu leeyahay qofka arrimahaasi fuliya Abiy ninka la yiraahdo Siyaasi Farqi seefta ayuu gal kala baxay waxaana muuqata in markaan uu muujinayo carada ka dhalatay sida dawlado kale ay Ethiopia markaas u taageerayaan madaxweyne Siyaasi Farqi ayaa hore u dhaliilay dowladda Imaaraadka Carabta inkastoo uusan carabaabin dalka iyo cidda uu markaasi ku eedeynayo waraysi uu bixiyay bishii November ee sanadii 2025 aynu soo dhaafnay ayuu madaxweynuhu ku sheegay in arrintan ku saabsan khatarta badda ee Ethiopia aysan ku jirin ajandaheeda ma jirto cid indhaha ka qarsanaysa in hub ka maalin walba soo gala Ethiopia uu ka yimaado Imaaraadka Carabta ayuu markaas sheegay waxa uu leeyahay hubka maalin kasta dalka Ethiopia soo gala Imaaraadka Carabta ay ka yimaadaan Imaaraadka Carabtana waa halka gobolka geeska Afrika laga soo galay ayuu leeyahay siyaas waxa uu yiri ma aha inayna gilgilaan aragtida markaasi siyaasiyiinta kale isagoo intaas ku daray in xisbigiisu uu yahay mid ku suntan markaasi xisbiga BB ayuu eedeynaya waxa uu tilmaamay in xisbiga uu Abiy Ahmed hogaamiye uu ku suntan yahay wax qabad la'aan sidoo kalena uu guul daraystay waxa uu Abiy Ahmed ku tilmaamay inuu yahay mid fulay ah mana aha buu yiri inaan meel siino diyaaraduhu waa inay noqdaan ajando horumarineed oo qaranka markaasi wax horumarkiisa looga shaqeynayo ma aha ayuu leeyahay in wax markaasi dalka duminaya looga shaqeeyo Siyaasi Farqi isagoo ka hadlay arrimaha qallaasaha ka taagan dalka Suudaan ayuu madaxweynuhu waxa uu farta ku fiiqay dad dibadda ka yimiday waxauna yiri ujeedada ugu weyn ee shisheeyuhu waa inay u adeegsadaan qallaasaha ka taagan Suudaan si ay u go'doomiyaan ama gobolkaba ay markaasi go'doon uga abuuraan shisheeyaha uu ka hadlayay madaxweyne Siyaasi Farqi waa Imaaraadka Carabta sida markaasi la tilmaamay Siyaasi Farqi eedeynta uu u jeediyay Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta markii laga yimaado waxa uu sidoo kale ka hadlay xiriir muddooyinkii u dambeysay la sheegay inuu dhex mari karo dowladda Eritrea iyo sidoo kale dowladda Mareykanka ee Donald Trump uu hogaamiyo waxa uu tilmaamay in dowladdiisu muddooyinkii u dambeysay ay ka shaqeynaysay sida ay xiriir wanaagsan ula yeelan lahayd dowladda Donald Trump uu hogaamiyo ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in xiriirkaasi dowladda Abiy Ahmed iyo sidoo kale dad arrimaha ama social media ama baraha bulshada ka hadla oo dowladda Ethiopia taageersani ay si qalad warar been abuura uga marfaafiyeen taasi oo keentay in Mareykanku uu markaasi dib u dhigo heshiisyadii markaasi u dhaxaysay Siyaasi Farqi waxa uu leeyahay annaga iyo Mareykanka waxa nagu dhex jira dowladda Ethiopia oo aan doonaynin buu yiri inaan heshiino taasoo ay uga baqayso in xiriir wanaagsan uu Mareykanka iyo Eritrea markaasi uu yeesho waxa uu tilmaamay in Ethiopia iyo Donald Trump waxaan idhaahdaa Eritrea iyo dalka Mareykanku ay hadda ka shaqeynayaan sidii cilaaqaad wanaagsan inta uu Donald Trump joogo dalka Mareykanka markaasi ay u sameeysan lahaayeen waxa uu Siyaasi Farqi tilmaamay in ay muhiim tahay in dowladdiisu ay dalalka caalamka si waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda ay markaasi u shaqeeyaan waxa uu leeyahay Ethiopia Eritrea waa dal guuna waa dal horumar uu ka jiro sidoo kale nabadgelyo dalal kale ayaa warar been abuur naga fulinaya waxaan u taaganahay ayuu leeyahay sidii aanu sharafta iyo qiyamka dalka Eritrea aanu markaasi u ilaalin lahayn waxa uu tilmaamaya in markaasi wax kastaba ha ku qaadatee ay arintaasi ka shaqeyn doonaan sida markaasi lagu daabacay wargeyska markaasi ama TV-ga markaasi dowladda dalka Eritrea oo waraysi markaasi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Farqi oo markaasi xiisada gobolka geeska Afrika si guud uga hadlay isagoo dowladda Ethiopia iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta si cad ugu eedeeyay inay iyagu yihiin cidda ka dambaysa in gobolku uu maalinta ka dambaysa xaaladiisu ay cirka gasho saaxiibayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena koowaad
cabdiqaadir maxamed ayaan ahay maalmaha waynu kala maqnayn waxyaabo kale iyo arrimo kale ayaan markaasi idinkaga mashquulay halkeenni ayaynu kasii bilaabaynaa warbixinadii kala gedsanaa ee caalamka Ethiopia iyo Eritrea iyo xiisada gobolka Geeska Afrika oo maalba nooc noqonaysa halkan ayaan warbixinadii ugu dambeysay idin kula wadaagi doonaa muuqaalkan la garay si uu dad badan u gaaro sidoo kalena si share gare si ay dad badan iyaguna noogu soo biiraan oo ay u subscribe gareeyaan barteena YouTube-ka ee Magan Media macluumaadka aanu maalin walba halkan idinku soo gudbino oo dhexdhexaada been iyo propaganda ka marana ay markaasi ula socdaan intii nala sii joogteena waa ay ku maadsan yihiin inay weli nala sii joogaan oo ay warbixinadeena ku taxan yihiin intaan kulmi doono warbixinteena xigta waana cabdiqaadir maxamed oo idin leh aad iyo aad ayaad mahadsantihiin ku xirnaada Magan Media.